xaflad si heer sare loo soo agaasimay laguna soo dhaweynay xildhibaan maxamed amiin xasan cabdalla iyo doctor maxamed cali ibraahim iyo qaar kale oo ka tirsan qurba joogta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa habeenkii xalayto ahaa ka dhacday gudaha magaalada Tanjida ee dalkan boqortooyada Sacuudiga jaaliyada gobolka Hiiraan ka soo jeeda ee ku dhaqan dalkan Sacuudiga gaar ahaan magaalada Tanjida ayaa soo abaabushay waxaana ka soo qayb galay xildhibaan maxamed amiin xasan cabdalla aalow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo professor maxamed cali ibraahim wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha bulshada ee dawladii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed wabarka beesha baadacade wabar cabdi cumar cuqaal siyaasiyiin waxgarad haween dhalinyaro fara badan iyo marti sharaf kale intii ay socotay munaasabada ayaa waxa laga soo jeediyay khudbadooyin kala duwan waxaana ugu dambeyntii hadalka qaatay xildhibaan maxamed amiin kaas oo ka hadlay arrimaha federalismka iyo sidii loo dhisi lahaa maamul uu yeesho gobolka Hiiraan ka oo ay ku mideysan yihiin dhammaan beelaha daga gobolkaasi xildhibaanka ayaa sidoo kale ugu baaqay dhammaan beelaha walaalaha ee daga gobolka Hiiraan in wixii khilaafaad u dhaxay ay ku xaliyaan miiska wada hadalka madasha ay ka dhacisay munaasabadu ahayd mid qurux badan ayaa waxa hadaladii laga jeediyay kamid ahaa anoo magaca beesha ku hadlay waxaan soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba oo si xoog ah oo aan kala har lahayn maamulka galmudug lagu dhisay gobolada dhexe waa soo dhaweynaynaa si hagar la'aan ayaan u soo dhaweynaynaa waxaa kaloo soo dhaweynaa wax alla wixii wanaag iyo dib u heshiisiin iyo ummadda Soomaaliyeed inay wanaag u hormartaan waa soo dhaweynaynaa waxaan jeclaan lahaa ra'yigayga shakhsiyadeed ama kan halkan u soo istaagay aan ka faa'iidaysanayo in Soomaalida maanta gobolaysiga iyo federaaliga wax ku qaybsanaysa inay u ahaato midnimadooda aan ugu tagin ee aan gobolaysi iyo colaysi aan imaanin ee ay u timaado gobolaysi si gobolba uu soo tabaraysto tabartiisana ugu beeriyo walaalkiis kale ee gobolka kale ee dariskiisa ah dibna ay u midoobaan ra'yiga iyo ujeedada iyo qarannimada Soomaaliya si cadowga guud iskaga garabsado sallallahu alayhi waxaan kaloon aad iyo aad aan mataqa ugu baaqayaa dadka iga ehelka ah reer Hiiraan oo ku wada nool waxaa jira wax la yiraahdo awood qaybsi oo dadka federaaliga wada qaatay ee wada yeelan karaan waxaan ku baaqayaa in loo codeeyo ama loo diyaar garoobo degmada Bulubarde sida ay ku noqon lahayd caasimadii maamulkaas ka dhismay gobolka Hiiraan waxay soo horay gobolada dhexe walaalaha waxaan ka leenahay hambalyo soo dhawaadaan leenahay walaal jiro waad mahadsantiin inta gobol oo dhan iyo koonfur galbeed ama ha noqoto ama Kismaayo